Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaynu ku soo qaadan doonaa amba aynu kaga hadli doonaa purchase return daybooks oo aynu kaga hadli doono sidii purchase return daybooks-ka loogu record garayn lahaa iyo sidii loogu post garayn lahaa payable control accounts-ka. Fadlan subscribe tahay ilaawina gambaleedhkana inoo fura si aanay idiin dhaafin fiidiyoyada dambe. Haddaba purchase returns daybooks-ku waa liiska dhammaan credit notice-ka aynu ka helay supplier-keena. Waxaynu u samayn doonaa sidii aynu u soo samaynay sales returns daybooks-kii oo kale. Purchase returns-ku waa marka aynu alaab ku celino supplier-keena waxayna inaga yaraynaysaa amountkii ama lacagtii ay suppliers-keenu inagu lahaayeen. Waynu jecelahay purchase returns-ka waana wax inoo fiican inaga xaqiiqdii waayo waxay yaraynaysaa expenses-keenii aynu wax ku soo iibsanay. Haddaba haddii aynu eegno date-kii aynu wax soo iibsanay, credit note number-kii magacii supplier-ka ee credit notice-ka ina siiyey si la inooga yareeyo qiimihii invoice-ka ee laynooga baahnaa in aynu bixinno net sales tax-kii iyo gross-kii. Waxaynu aragnaa in aynu helay credit notice $115 oo gross ah oo aynu ka helay supplier-keena waxaynayn geeni doonaa account-ka double entry-ga total-ka. Marka waxaynu ku post garayn doonaa total-ka main ledger-keena. Waxaynu helay hal credit note marka total-ku wuxuu noqonayaa isku mid sidii uu ahaa credit note value-geeni. Haddii aynu eegno net amounts-ka, purchase returns-ku wuxuu opposite ku yahay purchase-ka. Iminka net amount-ka purchase-ku wuxuu tagaa debit side-ka ee purchase expenses account-ka. Haddaba purchase returns-kuna wuxuu yaraynayaa expenses-keenii purchase-ka. Markaana waynu credit garayn doonaa. Iminka waxaynu credit garayn doonaa purchase returns account-ka. Waxaanu u eegyahay account-kaasi qaab income ahaan oo waa wax inagu soo noqonaya oo ina soo galaya. Waxaynu ku aragnaa cost of sales-ka marka aynu soo saarayno opening inventory plus purchase minus purchase returns minus closing inventory oo inoo soo saarta total-ka cost of sales-ka. Taas oo iman doonta marka sales-keena laga jaro sales returns-keena income account-keena. Wuxuu ina tusi doonaa marka laga jaro cost of sales-keena. Haddaba marka aynu iibsano alaab waxaynu kharash garaynaa lacagta oo aynu siinaa supplier-keena iyada oo ay la socoto sales tax-kiina. Haddaba waxaynu tax-kii aynu bixinay kala soo noqon doonaa tax authority-ga. Marka aynu taa samaynana waxa inaga yaraanaysaa sales tax-kii. Markaas waxaynu u baahannahay in aynu badino liability-ga sales tax-ka. Waxaynay noqonaysaa credit entry. Waxaana badanaysaa liability sales tax control-ka. Waxaynay opposite isku noqonayaan amba isku yihiin sidii aynu ku soo samaynay purchase invoice-keenii hore. Marka iminka gross amounts-keenana haynu nimaadno. Tani waa lacagtii ay inagu lahaayeen suppliers-keenu. Credit notice-kuna waxay yaraynaysaa liability-gii amba deyntii payables-ka. Marka waxaynu ka yarayn doonaa debits-ka payable control account-ka. Waxaana markaa inaga yaraanaysaa deyntii la inagu lahaa. Waxaa kaloo aynu samayn doonaa wax kasta oo taga control account-ka. Waxaa sidoo kale la geyn doonaa subsidiary payable ledger-ka. Marka waa in aynu debit garayno suppliers account-keegana si ay u yaraato amountkii suppliers-ka aynu ka soo qaadanay ama uu inagu lahaa. Marka casharkeenii hore ee purchase daybooks-ka waxaynu ku haysanay payable control account iyo individual supplier account.
sidii aynu casharkeennii hore ku soo aragnay. Haddii aynu dib ugu noqonno, waxaynu ku bilownay Payable Control Account-ka, waxaynu credit garaynay Purchase Daybook-gii. Iminkana Control Account-kan waxaynu debit garayn doonaa Purchase Returns Daybook oo noqon doona $115 oo tegi doonta credit note-kii supplier aan oona yarayn doonta deyntii payableskeena. Marka aynu dhammayno Control Account-ka, waxaynu geyn doonaa Individual Supply Account-kana ee Subsidiary Payable Ledger-ka. Waxaanaynu tegi doonaa supplier aan account-keedii PRDB. waxaynu u soo gaabsannay Purchase Returns Daybooks. waxaynu ku soo boos garayn doonaa $115 debitka si aynu ugu yarayno intii ay inagu lahayd supplier aan. xusuusnaadana sharcigii ahaa wixii la geeyo Control Account-ka waxaa la geyn doonaa sidoo kale Individual Subsidiary Ledger-ka. waxaa halkaas inagu dhammaaday casharkii Purchase Returns Daybook. waad mahadsantihiin dhammaantiin.